konton iyo sagaal guurada ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo maalin horudhaca ay noqotay kadib markii maanta ay taariikhdu ku beegantahay 11 Abriil ay noqotay maalin la xuso sanad guurada waa konton iyo sagaal guurada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sanad walba 12 Abriil ayaa loo calaamadeeyay xuska maalinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hase yeeshee sababa jira awoodood ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 11 bisha Abriil loo calaamadeeyay in loo dabaaldego konton iyo sagaal guurada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadaasi oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo munaasabada halka ay ka socoto waxa ka dhacaya khudbado kala duwan oo mas'uuliyiinta ka qayb gashay ay soo jeedinayaan iyadoo goordhaweyn uu hadlayay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo xusay sida lagama maarmaanka ay u tahay in loo tayeeyo loona xoojiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhawaan ayaa la filayaa in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka hadlo munaasabadaasi konton iyo sagaal guurada maalin ka hor la soo hormariyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay u xirnaayeen sanad guuradaasi ama konton iyo sagaal guurada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku beegnayd maalinta biriya